wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Salebaan Yuusuf Cali Koore ahna afayeenka xukuumadda Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaradda warfaafinta ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland soo dhaweynayso go'aanka maxkamadda ay ka soo saartay xeer number 14 oo xeerka furista ururada oo maalmihii u dambeeyay muran badan ka dhexdhaliyay oo guud ahaan Soomaaliland sidoo kale wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in dhawaan madaxweynaha Soomaaliland safar shaqo ku tagi doono dalka Itoobiya bulshada reer Soomaaliland meel kasta ay joogto waxaan halkan salaan uga dirayaa in qof kasta bashbash iyo barwaaqo ku noolaado ilaahina aan ka barino inaynu wada jir ku gaadhno guulaha qarankani higsanayo oo ay ugu horeyso aqoonsiga wada noolaanshaha is-aaminaadda iyo isfahamka guud iyo u hoggaansanaanta inaynu noqono qaran u hoggaansama sharciyada ay dhigteen ee dawladnimada lagu yahay haddaan qodobka labaad uga gudbo waxaanu soo dhaweynaynaa qaraarkii maxkamadda dastuuriga ahi ay shalay kaga dhawaaqday go'aamadeedii waxaanu si buuxda oo milga leh u soo dhaweynaynaa qaraarkii maxkamadda dastuuriga ahi qodob kasta iyo xaraf kasta iyo qaab kasta oo ay u dhigtay sababtoo ah meel ka dambaysaanba jirinba waxaan halkan kelmad ka odhanayaa halkan waxaan ka hadlay goobtan aynu taagannahay 12 bishii 12aad 2021 waxaan ku dhawaaqay iyadoo xeerarku la raacayo xeerarka waddanka iyo xeer 14 in uu ummadda reer Soomaaliland siinayo in 10 sannadoodba mar la fura ururada siyaasadda iyadoo la raacayo xeerkaasina way furan yihiin ururada siyaasadda waxaan u malaynayaa waxaa ka dhashay kulayl hadal buuq aan yaray waxaa loo gudbiyey maxkamaddii dastuuriga ahayd maxkamaddii dastuuriga ahayd sidaynu wada ognahay waxay ku dhawaaqday in ururada siyaasigii furan yihiin iyadoo la raacayo xeerarka iyo qawaaninta qarankani leeyahay waa la soo wada dhoweeyey xukuumadda iyo dhammaan dalkuna waxay ka mid yihiin kuwa soo dhoweeyey asxaabtuna way soo dhoweeyeen waxaa isweydiin mudan oo la rabaa bal in la isbarbar taago waxaa kale oo madaxweynuhu mararka qaarkood waxaaba laga yaabaa in loo arki karo in wasiirku meel dhow ka soo dheegtay hadalkee waxaa madaxweynaha qaranku 2 jeerba isaguna 2 goobood kaga hadlay in xeerka loo hoggaansamayo oo xeerka 14 oo ummadda reer Soomaaliland siinayo xuquuq ah in 10 sannadoodba mar la furo ururada siyaasadda waqtigeediina la joogo markii maxkamaddu ku dhawaaqdayna waa la soo wada dhoweeyey aad iyo aad baan ugu faraxsannahay isweydiintu waxay tahay kulaylkii hore ee faraha badnaa iyo go'aankan sida degan loo qaatay maxaa sababaya waxaa kale oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu berrito u ambabixi doonaa magaalada Addis Ababa isagoo ka helay dowladda federaalka Itoobiya martiqaad rasmi ah oo uu kaga hadlayo danaha ama lagaga wada hadlayo danaha u dhexeeya labada dal rag waaweyn oo mas-uuliyiin ah oo dalka hoggaamin ka raba ayaa erayo deelqaaf ah ku hadlayay
oo aan looga baahnayn in bulshada dhexdeeda iyo mas-uuliyadda qaranka cidda ama haybadlaha koowaad ee dalka ee qarankani maamuusay ee ummaddu dooratay in ereya noocaas lagu isticmaalaan laakiin waxaan odhanayaa ummadda ayaa qofka sheegi doonta ama ummadda ayaa kala saari doonta qof waliba wuxuu dalkan u qabtay horena ugu qabtay haddana u qabanayo marka dambena uu u qaban doono laakiin xukuumaddu waxay wadanaysaa shaqadeedii caadiga ahayd cidna runtii wax kastaa oo yimaadaana mas-uuliyaddeeda iyo xamilkeeda iyo runtii baa xukuumaddu leedahay aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay inaynu dhammaan haddaynu nahay ummadda reer somalilan ku faraxsannahay go'aamada maxkamadda dastuurigii ay qaaday wixii ka dambeeyana waxay noqon doonaan kuwo tallaabo loo qaado oo hay-adaha ku shaqada leh ayaa go'aamada qaadan doona hadday tahay hay-adda dib u furista ururada siyaasadda iyo asxaabta hadday tahay guddiga doorashooyinka hadday tahay hay-adaha kale ee ku shaqa leh ayaa iyaduna mid kastaa waajibaadkeeda dastuuriga ka fushanaysa goobteeda iyo meesheeda iyo wakhtigeeda waxaynu isku ognahay guul iyo gobonnimo iyo wada shaqayn iyo qalbi wanaagsan iyo inaynu noqonno ummad reer somalilaana oo meel wada jeedda ee aan kala jeedin qofka danta qarankana laga hormariyo danta gaarka marka aynu danta qaranka ka wada shaqayno ayaynu danta gaarka ana ee qofkuna markaasay imaanaysaa axmed maxamuud dool telefishinka dalsan hargeysa